ka horeeya waxa weeye sharciga iibka qaranka oo documentkiisii leedii qaybiyay iibka qaranka mar hore ayaa la diyaariyay haddaan nuxurkiisa idin sheego waana la saxeexay madaxweynihii hore xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh baa saxeexay 2016 markii la damcay in la dhaqan geliyo ayaa waxa ka soo baxay goldaloolooyin baa ka soo baxay iyo qodobo la damcay shaqayn kari waayay baa ka soo baxay sidaa daraadeed waxa ay taladu noqotay in dib loogu noqdo dib baa loogu noqday waxyaala laga bedelay waxaana runtii lala simay shuruucda casriga adduunka ayaa lala simay sharciga iibka qaranka sharcigani wuxuu jideynayaa waxa weeye habka iibka qaranka loo maro inay tahay hab daah furan oo la xisaabin karo dib loogu noqon karo la xisaabin karo hab furan oo la jaan qaadaya shuruucda adduunka ayuu runtii noqday waxa gacan weyn naga siiyay adduunyada dadka waxa u heelan oo bangiga adduunka mid yahay FGC da qolada la yiraahdo la shaqeysa ka mid tahay IMF ka laftooda ka mid yihiin maadaama inaga xoogeena arrimahaas uu yar yahay capacity building waxa kale marka qolooyinkaas ka helay technically markii la wadayna cid walba waa laga soo qayb galiyay technically markii la waday waa laga soo qayb galiyay sida daraadeed markaas uu noqodkii dambe loo dhameystiray golaha shacabka loo geeyay golaha shacabkuna imika ay soo gudbiyeen sida daraadeed idinka ayaan idin soo bandhignaa qodobo yar oo kooban weeye sharciga la idin qaybiyay gudoomiye wuxuu tusayaa qodobku wuxuu ahaa iyo waxa lagu bedelay wuxuu ahaa iyo waxa lagu bedelay marka taas table-kaasi ayaa si fiican u qeexaya waxaan filaynaa insha Allah inaad gudidu ay ka shaqeyn doonto anaguna wala shaqeynaynaa ilaahay idinkiina si degdeg ah ayaad u sameyn doontaan sidii kuwii horeba la idinka bartay waxa doonaya inaan tilmaamo sharcigani of course waxa loo sameeyaa waa dad dawladdeenu in hana qaadiyo dadkeenu in hana qaado oo adduunka la falgalo oo international organizations kama hay'adaha adduunyada ka imanaya doonaya maalgelis inay nagu sameeyaan maalgashi nagu sameeyaan in ay garan karaan sida wuxuu iibka qaranka aanu maamulay garan karaan marka basically waxaanu sameeynaa waa dalkeena aanu sameeynaa iyada oo marka importance-keeda la hirgelinayo ama la xusayo ayaa beesha caalamkuna ay nagu tiri arintani waa muhiim weeye geedi socodka deen cafiskana muhiim bay u tahay marka waa arin wadankeenu u baahan yahay wadan waliba u baahan yahay doonayeen hore u maro talabaadna waxa weeyaan iyaguna way xuseen IMF ta iyo World Bank kuba labaduba waxay yiraahdeen waxa weeye arin la idinka baahayna sameeysan si arinta deen cafiska aad uga gudubtaan marka aad iyo aad baad u mahadsantiin